doodii Somaliland wuxuu ka dhigay cardaadiiqaha soo dhawaada warbixintan iyo muuqaalkanba leeg la dhaca dowladda Turkigu waxay cadaynaysaa in ay daacad tahay waxayna leedahay war annagu cid aan wax la qabanaan la arhay iyagoo bumbadii ugu weyneed ku dhuftay Xasan Sheekh Maxamed waxay leedahay cid doonaysa Soomaaliya midnimadeeda oo aan la shaqeyno ayaanu la arhay bilada dowladda Turkiga waxaan doonaynaa bay leeyihiin inaan Muqdisho agagaarkeeda iyo gobolada dalka aan ka dhigno amni ee koonfurta waxay leedahay cid daacad oo nala shaqeysaan weynay halka waxa iga baxay in xataa madaxda dowladda federaalku ay dowladaha dariska ah iyo dowladaha shisheeye ay lacag ku siinayaan in aan la soo afjarin shabaab doodaas halkaas waxba weyn baa iga baxay warbixintan aan ku dul istaagi doonaa soo dhawaada xilli dhawaanahanba ay jirtay aragtida gooni goosadka oo la boonbooninayo niman loobiyo lacag la siinayo markii ugu horeysay waxaa gantaalkii ugu cuslaa soo tuuray dowladda Turkiga marar badan Soomaalidu waxay dhihi jirtay ama ku mahmaahi jirtay qabiil qaran ma noqdodii baa waxaa fagaarayaasha la soo istaagtay dowladda Turkiga doodii ugu cuslayd ayuu safiirkii hore ee Turkigu ee Soomaaliya soo bandhigay xalay taas oo markaasi u qoosgoysay rajo kasta oo gooni goosigu ay qabeen Dr. Kani Turan wuxuu ahaa safiirkii Turkiga waa diblomaasi arrimaha Soomaaliya oo dhan buu daraasay saas u fiirshay Soomaaliya geeskaas ku istaagay tanuu ku istaagay war halkee salaadu ka xirmilaadahay war maxaa jira xaqiiqadii rasmiga ahayd oo Soomaaliya aan intaas ku wacdinayay bufnaanka keenay maxay tahay xaqiiqadaas hore waxaan idin sheegay war mashruucan shabaab waa caqabad war mashruucan shabaab dawlad Soomaaliyeed oo xamar ka dhalataa loo diidan yahay Soomaaliya markay burburtay qabqablayaal ayaa Soomaaliya dhibaato u geystay qabqablayaashii waa laga takhalusay qabqablayaashii markii laga takhalusay la arkay inay dawladnimadii ku dhaxmilmeen ayaa mashruucan jihaadka beentana loo keenay iyagiina waa laga takhalusay markii laga takhalusayba iyagii inta la sii kala jabiyay baa qayb duurka la geliyay waxa ku xigtay ciidamo aan ma taqaanay mashruuc la yiraahdo hawlgalka Amisom maxay ahayd waa ciidamo Afrikaan oo aan talaabo qaaday ilaa ay maantana meel kasta ay joogan magaalooyinka caasimadaha ay ma dhaafaan halkaas joogan lacagtooda biilkaana way qaatay iyaga intaas hadda ugu jirta yaa la rabaa marka inay baraarugaan waa inaga waa inaynu wax fahanno Turkigaas ayna baa inaga waxayna inoo sheegay inagina waxaan ognaynaa wax ka qabanana ma rabno mashruuca shabaab waa mashruuc lugaha lagu qabanayo dawladnimada dawladii Cabdullaahi Yuusuf maxaakiin baa lagu qabtay lugaha 3 sano iyaga la daala dhacin Sheekh Sharif ba imaada shabaab lugaha qabtay oo hor istaagay Xasan Sheekh imaada way sii qabteen farmaajo imaada lugaha qabteen haddana waa kana inay mashruuc yihiin oo xataa ma taqaanay maamulada dalku ay qaybtood ku qanceen in la noolaan karo hada Jubbaland oo kale Axmed Madoobe farma dhaqaajiyo waxay joogan ma taqaanay Buali baar dheerayo goob weyn bay agteeda joogan farma dhaqaajiyo waxa muddo inay heshiisiin waa u jeedaba Somaliland dhaqaale buu ku bixisaaba inaysan degin xamar oo malaayiin doolar dhalinyaro ay u soo dirtaa way cadahay mar safiirka Turkiga marka doodiisii baan idin la wadaagi doonaa waa tana wuxuu leeyahay safiirka Turkiga gooni isutaaga Somaliland warqadan qoray ma ahan buu leeyahay sal sharci ah dood sharci ah ma ahan oo xoogan marka la eego shuruucda caalamiga ah waa nin sharci yaqaan oo loo yarna soo noqday oo adduunka xogihiisa iyo macluumaadka sharciyada wadamada yaqaan marka la eego qawaaniinta caalamiga ee aqoonsiga dalalka sababtoo ah buu dhahay Somaliland iyo Soomaaliya inteeda kale kuma kala duwan qowmiyad diin luqad saddexdaas qodob ayaa ah tiirarka caalamku ku aqoonsada dalalka cusub hadda dalka Suudaan marka la kala goynayay adduunyadu waxay fiirsay indhahiisa u fiirsay walow dana ma taqaanay shidaal la rabay in wadanka laga baarto haddana dood sharci ah baa la leeyahay midowga Afrika iyo iyagad iyo kulli qaramada midoobay isku mid ma aha waa kala duwan yihiin isku luqad ma aha waa dad kala jinsiyada sharciyadaas lagu gooyay Suudaan farqiga kaliya marka wuxuu yiri
ورقبيل قرن ما نقدر نهاي أرنت أبا هم بالنظام كفدرال كسل الله وضحي أو فدرال كصومالي وجوده هرجلو بل سأن معنا أصلا يمكن ضل عصب وحوت صالة وسوقاتي هدي قبيل كستا أو أفريقيا ضل قديكو قبيل كستا أفريقيا ضل قديك أفريقيا وحي نقول هاي بوير إن كبدان شن بقول أو ضلال أو ير أو أنشغين كده أفريقيا أو لن بهدي سومالي لان لا أقونصده وحي نقولنا قبيل كستا قرن بنقولنا وأنا واحد مدوق أفريقيا ودكتي حركة أن حدودي جميسي اللي ما حد قد بكره وأنا واحد صومالي يسوج بيدقال يكون يسقال بقول تطبيق ضاتك ولو نقول شهلني أو دولة الميليترية أهيد أيضا ما تقننا يحدث أو هذا أي سمايسي حدنا مركز واحد كسر لنا أقرأ ما دعينا من قصة الشرعية دي بحقضي ودمنا بدنا أفريقيا كانوا نقص ورجستين باش عالم كيروش كي بلايدي سودتين ونقص وجبيان دقال كوبا يروش مركز وعليه هاي war Afrika dhan baa dalal noqonaysa wadamada Afrikaanka ana mar hore Soomaaliland aqoonsan lahayn waxay ka baqayaan inay dhexdooda ka qaacdo Kenya NFD baa ka go'aysa haday isku dhaqaajiso Ethiopia waxa ka go'ayso Soomaali galbeed baa go'ayso saasa loo kala go'aya kuweena dariska marqaati ku filan si kastaba ha ahaatee wuxuu leeyahay Dr. Turing wuxuu qiray in mushkilada Soomaaliland aysan ku jirin kaliya rabitaankeeda balse ay si toos ah uga dhalatay fashilka Muqdisho arintaas maxaan ku cadeynayaa walaalayaalow codkii horena waa soo dhaweystay Allah u naxariisto Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal wuxuu soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka 91 ma uusan rabin in dalka la kala gooyo ma uusan rabin in dalka la gooyo waa madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland baa la sheegay walaal Cabdiraxmaan Tuur ka horeeyay haddana labadoodu ma aysan rabin Cabdiraxmaan Tuurna ma rabin Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal ma rabin waa lagu qasbay واقعي بين أهل عندها الله صار محن كو عضينا تاس محمد حاج جبران عقال واكنا إسقى مدعينا سمان اللي أنا بوعتك جبوتي والله ورئيس فرين تانو إلى اللي يستوى كنا هذا هدي ما أنت واحد يودي سيجار ما عندك كلا جوا قصة واحد قصة ده هو كلا جوا مركي أنا خيدت كي غير وقوي أو تشنيه وتمرلي ووحي دحدودي ليش علي دليك النقطة حالي دليك النقطة ومعمولنا يدلكودي يدنتودي إلا لبس فوق مركز والله إلا لو حيراني بسبب دليك كريواي من بيجودي إنه كله إنه سو حلالوبه بنيستي ورا دب سعونية دب تشاغي يسكنوا حبنا كلام وعلى التاريخ وي الرئيس الوزراء عقال الله نحريسته أركتداس ما بوسن ربي ما بوسن كل شقين ما كمان فكره ورك أسنا من معنيه سوحة الصومالي ناشونال موفمنت تبشاين بيقبين تبشاين كاس إلا حليا له ربي وليا يتوب يوشقين يضل كالربين بربريان باكن حدنا وليا هسا واحد كعذاذيين إلا قصته وأنا دنبي يقوين أيوة يقولون صدقني أفرت سنة أيوة غلط كمال أنت هسا يقولون واكنا سومدها غلط بان قالين لحدنكي غلط كي يقول الله بعدنا وحي قالين سقاشني كود سا هذي لحدنكي غلط قالين ساي كود هذا يجو ما هنا غلط لبعض قلام بهاي هذي ربنا إني جوسان صويني قبائل كدقاء كلا تشدان ما هي ما يجوا لا تشدان بس جوسان دي بعد يستنى واتاس ما أنت أوضن لا يقعد عيسو وغيب ريستين اللوسمي ما أنت هنا عندنا لما تشدان ما تغنى يا ويسعد حماية إن 1960 وعندنا مربين حتى مدعين آذان عبد الله عسفان واحد لقى شيء إنه يري ورنماية وهرت بالأوكاتي بل أنك كونفرت يدا أنه بل نظام عن سما يسنى أوكاتي ويلا أرديان هب 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 ما عندي دمر ويسعد حمايانه يجوا لو أنا لحسوقي ودارود وأنا حسوقي وقول دارود وعد بعينه لقوستا يقنعي بل أنا يقنعي بل أنا يقول قنعي قوسة شذا يقول قنعي إلا دقاء كمان تقنعي maalintii horena midnimada ma taqaanay say u sheegay cigaal waraysi dheer laga qaatay baan dhageystay xataa aadan Cabdullaahi Cismaan waan wajigiisu nooma fiicneen buu dhaay ra'iisul wasaarihi ma taqaanay Cabdullaahi Ciise baan ka wada Cabdullaahi Ciisaan ka wada aadan Cabdullaahi Cismaan markaas awood ma lahayn madaxweynaha Soomaaliya 60kii uu noqday Cabdullaahi Ciise oo hawshan waday oo ra'iisul wasaaraha dalgaarsiinta maxmiyadda dawladda daakhiliyadda
أنا أقول لي وحتى وجهي سنة ما في عين نلا مربين كونفورنا لك مربين بقول نلا كمربين بقول وفدقي ما تغني لك صدري إن لك صدري هرجيسة اللي قاس درانك الشعب كرر وقويقا وحكو أمري إن قبل هذا وقوي دالك بقى من ماذا ربي شنت الصومالية ذا للدنيا نما كان كونفور جوجر ما بقى يسات من بقى مالنتينا واحد يضيين ويعقال الحقيقة وش قدرت كاس ده كيف بديدنا أو يعجر اللحو يمين نما الربي maalintii dambe oo ay rabeen inay ma taqaanay balqaabkii wax u wadaana dadkii lama tashan عنصريadii cuqdad bay ku goortaan isaaq genocide doorada wax ku helday adiga lagu xasuuqeeda isaaqee orad wax kaga hel caalamka samaroona adaa xasuuqay hartigana adaa xasuuqay orad wax kaga hel samaroona 91 baa dilay boorama ku laysay hartigana 2023 baad laysay marka adigu xasuuqaaga bal wax ku hel annakaygan wax ku doonanaya saasay noqonaysaa waa waraarka ugu weyn ku dhacay weey maalintaasna aqli ma lahayn marka wuxuu ku doodayaa safiirku sida aad halkaas uga jeedaan maxamed xaaji ibrahim cigaan la uu leeyahay war aniga waxaan waa laygu khasbay markaan meeshii nimid maadaama aan sideetamaadkiina siyaad barro u xirnaa ma taqaanaayay ishag meeshiina markii la qabsaday aan tagnay waxaan u tagnay buu yiri dadkii iyo goosasho raba waxaan ku yiri buu leeyahay war bal u kaasay bal horta xamar aynu fiirinay meeshina waa iyadii la isku dagaalay cali mahdi ayji markaas ali wartani waxba kama soo naasacdaanu goosan tani inay maalin u hagaagi doontaan niyada la iska magalin ilaa maantana waa tab wuxuu leeyahay marka safiirku waa kana ma ahan buu leeyahay sal sharci ah waana fashil ka dhashay buu leeyahay muqdisho magaalada caasimadda ah buu leeyahay oo aan la xallin karin mushkiladaha siyaasadeed iyo amni ee dalka intiisa kale ayaa Somaliland siisay buu leeyahay marmarsiin ay ku sheegato goonistaag hadii muqdisho noqoto dawlad shaqeysa oo awoodo inay dalka mideyso Somaliland waxdooda oo culus ay ku sii goonistaag ku doodo ma haysan lahayn gabagabadii wuxuu ku soo gunaaday in eedaynta Somaliland aysan waxba ka jirin balse xalka dhabta ah uu yahay muqdisho in la hagaajiyo dawladnimo dhab ah iyo amni waa in laga dhiso markaasna doodaha goonistaaga si dabiici ah ayay u daciifi doonaan waxa qar rasmi ah marka magaalada muqdisho amnigeeda la adkeeyo oo shabaab gobolada dalka laga saaro galgaduud koonfurta mudug gobolada dalka oo dhan laga shaqeeyo tubooyinka laga saaro oo ma taqaanay maamulkii waqooyi barina ku jiro awdal state-na aad samaysid bal burco iyo hargeysa barbara meelaha geeyaan bal ha geeyaan meel waxay ku qasbanaanayaan inay dalkooda dadkooda dhinac ka raacaan laakiinsi iska daa Somaliland Puntland ba xataa waxay ku doodaysaa aan hadii aan koonfurta amni la'aana aan ma taqaanay ifrageliso oo faragelin la igu sameeyo aan sida koonfurta kale ba amnigaygaan u baqaya waa qodob Puntland xataa ay ku dooday iska daa Somaliland marka maxaa la rabaa war waa in xamar iyo agagaarkeeda iyo gobolada dalka la xalliyo si loo xallin karo madaxweyne xasan sheekh fursadii ugu muhiimsaneed isaga qasaarey qorshahaas uu ka shaqeeyay hawlgal culus oo dagaal baa la bilaabay 2023 hawlgalkaas isagoo gabagabadii maray oo taliskii Hiiraan ee buqa qabla la raba in la jabiyo buu siyaasad u soo jeestay dastuurkii doorashooyin taasi waxay keentay inay qawaarij soo rogaal celiyaan oo deegaanadii laga saaray ay dib u qabsadaan halka inay caqabad ka jirto u jeedaan haddii maalintaas xasan sheekh وإنتو جوسها يسدافسوا بقى قبل قبل لها مقالة عيلبور نتقي لها والله صو أفكر لها دمان كاس هيران وقدر ما الله هي سبب الله ده هيران سبب الله ده وحل أدي مركز قبل هذا بوي بقول يجدو ها شو بوين كي شو بده هسال أدي لها محل لو بهاي وحل لو بهاي مدحوينه أنكم مشغولين دستورك مدحوينه aan ku mashquulin sidee ku soo laabataa madaxweyne 4 sano ama 5 sano ee muddaxileedkiisa siiya sidii looga adkaan lahaa shabaab haddii shabaab laga adkaado dawladdu waxay leedahay awood muhiim ah oo ay sanduulo uga dhigi doonto maamulada inay u hoggaansamaan dawladnimada laakiin iyadoo shabaab uu yahay marmarsiinyaha ay haystaan maamulada gooni goosadka ku ordaya runtii xaqiiqo aan la iska indhatiri karin muxuu yahay marka xalku war waa muqdisho amnigeeda la hagaajiyo shabaab oo laga adkaado gobolada dalka ee koonfurta oo la isku furo waxaan aaminsanahay dastuur kasta oo la bedelo in dowladda maamuladaasi ay jabayso
maamuladaas buuq ma keeni karaan marka wadanka amni laga dhigo laba xal baa lagu wajahayaa maamulada dowladnimada ogol sida Puntland oo nidaamka federaalka ogol waxa tabanaysaan miiska soo saara la leeyahay waa la qancinayaa gogol baa loo dhigayaa hadday buuq iyo qaylo keenaan awood ciidan baa lagu qabanaya awood ciidan baa lagu qabanaya Somaliland ciidana sidoo kale gobolka Awdal State marka maamul loo sameeyo burciya argaysi barbaro runta loo sheegay maxaad u baahantiin baa la leeyahay maxay idan ka maqan sheegta waxaad rabtaan haddaad awood qaybsi ka caawinaysaan haddaad ma taqaanay leedihiin xilal ma haysan sheegta marka tabashadooda la qanciyo haddii la arko koox soo tagan hilfaa loo qaaday waa xaqiiqada rasmiga ah waana midda kama dhibcaanka ee aakhirka tagi doonto si markay kooxaha xaq jirka ah hilfaa loogu qaado waa in marka hore shabaab aynu ka bilowno shabaab markaynu ka taqalusno oo dalka oo dhan laga sifeeyo markaas cidii wanaag rabtana oo dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed rabtana xalkeeda waa la helayaa kuwa xalka diidanna sida shabaab loo wajahaya maxaan qodob uga dhigayaa doodaydaas dad baa waxay moodayaan inaan fikrad kaligi talisnimo iyo ku ordayo maya Abiy Ahmed dalkiisa Ethiopia ra'iisul wasaare ka yahay halkaas uu jooga amni dara kale kama jiro jabhadaha Ethiopia nimada ka soo horjeedo uu la dagaalamay argagixisada shabaabna duulaan ku soo qaatay inuu la dagaalamay ayadii dhawaan lagu jabay deegaanadooda lagu jabay nimantii BLF la yiraahdaa iswaal waalay xukunka kadib xisbiga yagi BB miiska fariisto maxaad rabtaa walaalayaal way diideen inay goosanayaan baa la ogaaday halkaan inta ka baaxa dowlad milyan dilay dowladnimada waxay ku qaateen sandulle dowladnimadu dhiig bay rabtaa in loo daadiyo waxay rabtaa nin aakhiradiisa inta iska ilaawa dalkan iyo jiilasha dhalinyarada dambe soo socota dowladnimo u raadiyo u baahan xaqna ku dooda ee dadka xaq darro ku lay wakaasa adduunka yuu la macaamilaya Abiy Ahmed adduunku lama macaamilay TPLF adduunyadu TPLF waxay u taqaanaa dowlad ka tirsan maamul goboleed ka tirsan federaalka Ethiopia sidaas si lamid ah dalkan ma la raba in la badbaadiyo waa in sida Addis Ababa ay u noqotay amaan oo aan Addis Ababa agagaarkeeda ma taqaanaa aysan uga jirin dhibaato oo gobolada Addis Ababa ma taqaanaa ku xeeran aysan shabaab iyo argagixiso kale iyo balaayo kale oo goosanaysa aysan u joogin waa in la xakameeyo amniga koonfurta iyo arintaas ka shaqeyn kara waa qabaa'ilka way diyaar ma yihiin ha waxa tusaaleeydun kugu filan beelaha xawaadle iyo habar gidirsay u dagaalameen yaa dhabarka ka qabtay dawladii ما هو بالسيو ما لا تاجره حقيقة مركب قبائل كبلاها ويا دارات كي يدقل يمرف لها كونفوز الدقن ديار وين هنا وحال لا هي دولة شايسة دولة دي تشهين لهنا وحيكون مشغول سنتها دور شوين لولا بابا ما تغنى يشق مالها لاب كان لقى صور لابتو يشق ما تغنى أن كدر صبا أن مدحيات كي بيكون مشغول هدي حسن الشيخ محمود وشنتها سنة أود سار الشباب قول بلق جاري لها dadkuna dowladnimada si dabiici ah ku aqbali lahaayeen maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay madaxweyne aanan dhihin war mudaxilaadkayga hal igu daro oo macnaheedu ma taqaan xoog baan ugu darsanaya iyo waxbaan kordhisanaya ee ay dadku ugu daraan marka shaqadooda la arko oo la arko dalka saad u hogaaminaysid adaa lagu daraya xasan sheekh maxamed hadduu dagaalka shabaab ka dhameyn lahaa oo oran lahaa war Soomaaliya nimankii waan ka guuleystay maanta jirid baan go'doomin rabaayo waa u jeedaan ee hal sana la igu daro waa lagu diray laakiin si dagaalkii soo maray hadaan ka soo laabto hadda fashil weeye waa inaad ka tagtid meesha xaqada markay xasan sheekh taariikh buu gali lahaa taariikhdaasna waxa uu noqon lahaa dagaalka shabaab guul ka keeno waliba shakhsi hawiya iyo dadkiisa abaabuli karana wuu ahaa dhibtii waxay noqotay inuu siyaabo kale siyaasado kale ku mashquulay waxa ku cadaadinayna waa dawladaha dariska ah iyo amisom laftigeeda oo aan rabin in shabaab laga adkaado hadii shabaab laga adkaado wiilka afrikaanka ee $1,000 qaadanayo ma sii joogaya Soomaaliya maya uu ka baxaya ha Abiy Ahmed ma ogola in shabaab dalkiisa soo weerarto waxaad ogeydeen 10 ku dhigay markay weerareen ma taqaanaayay xuduudda gobolka Bakool iyo Hiiraan ay ka weerareen soo jabay waa u jeedin ma uu doonayo ma rabo hadda intay si dhaafaan buuraleydaas u galaan ka war yaa ka saaray cidna ka saari mayso إنك دولة ما يتوبي ويبربويس شرعيات بوهيستا دول كيسيدا نوقع عنتك هايستا هاي ساسا لو بهاي ملي هلا يا مدحوينه ساسا ميا
إلا أن الدنيا دينا لا أركتي يجينا الديار بينويهين ما تغنينا وإحنا لا قبطانه ما اللي هليا أنا جي لماها وأيضا بيلماها اللي هليا وأيضا بيلماها اللي هليا وأنا كان كقرية مركب دود جوني ستاجونا بين أبورك إحنا ويسجريسه أنت أيسن حمر الحلين يجونا دقالية عيدا بيكب حنا يعني دلنيراي ودران سيسن ودقني وحلو بهان يهي سي حلك الله هلا ور دولة صوماليات أو داعد أو ودنياد له وإنay xukunka dalka la wareegto وإنay muqdisho la wareegto وإنay dawladdaasi 3 sano 4 sano awoodeeda iyo maskaxdeeda iyo cilmigeeda iyo resourcegeeda oo dhan isugu geystay la dagaalanka shabaab waa caqabada dawladnimada hortaagan waa la ogaaday waa iyaga atmis ku haya meesha ma weeraraan xiriyaha ciidamada atmis ma aragteen shabaab weeraraysa atmis ciidamadeeda ma weeraraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bay laayaan oo hubka ka qaataan meel Ethiopian jooga ma weeraraan meel Djibouti joogan ma weeraraan meel Uganda joogan ma weeraraan inay isla shaqeynayaan waa cadahay saanu Afrikaantan dab hal la galiyo sida madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu dab u galiyay Ethiopiankii maalintii ma taqaanay baydhabo imaaday daynunay baan u galanay galanayna dagaalka naclaydan dhalay maxaad meesha la fadhidaa waa in la helo madaxweyne abaabulo maxay u fadhiyaan meesha ha waxay la yimaadeen qorshe ah annagu nabad raadiyayaal ma nihina waxaan nahay nabad ilaaliyayaal meesha ciidamada Soomaaliya qabsadaan baan fariisanayn wargal dagaalka maxaa ku taagay meesha maxaad igu fadhidaa maxaad ku daru qaadanaysaa waa in dagaalka la galiyo way atmas ha biiskiibaris baan nahay nabad ilaaliyayaal looba keenay nabad ilaaliyayaal waxa loo keenay nabad raadiyaan ha waa in la dagaalamaan shabaab ugaarsadaan baa loo keenay laakiin si inay xiriyo isku soo oodaan oo intay container dhigtaan ay dhaan halkaas lacagteeda ku qaadanayna konton sano dambe meesha noo sii fadhinaya arrintan laga shaqeeyo shabaab waxa faa'iidada ku qabo waa maamul goboleedyo gooni sutaag doonaya dawladda shisheeye oo raba inay wadanka sii haystaan oo halkaas mushaar ku qaataan iyo dawladaha aan doonayn in dawlad Soomaaliyeed ay dhalato oo dawladaha dariska ay kamid yihiin istiraatiijiyadaas iyo buqcadda Soomaalidu ku tala in laga faa'iidaan la rabin نوعا مركز حلقة أنا وحنا أركان والاستراتيجية دي قرشة بلارن أو أمني وين لجوا وشون نبنكاس مدحوين الداعد أو ما تقارنا ديار إحنا وين يبغى حسن الشيخ محمودنا مدحيلات كيسي إسقى إسقى خساريي إسقى إسقى ضيعي قول بونتشوفه وينو دورشة هذا غبطه هالكاس إنه ما تقارنا استراتيجية غير اللي قد دياري إن شاء الله أنا قول بنورتشينيا الصومالية حلقة نبتة أنا الصومالية وإنتهى